بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين إن الله وإنا إليه راجعون وحا قرح ومانتا كداعي حرمتي قبلك dad badan oo runtii mas'uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday wali waxaan ku dhaawacyadii iyo dadkii sidii wax u gaareen saacadooda gudoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii khaliilka lagu jiraa dhowr gudoomiye degmana wax ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka hoolkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirka lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday waxay ilaahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si wax u geystaan oo isqarxiyaan marka wali ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyay iyo mid isqarxiyay uu yahayba dib ayaana rabaa inaan ka soo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir u baaqayaa inay isjiyaan waxa dhacan ay tahay wax qadara oo ilaahay qoray gudoomiyaha gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa gudoomiyaha dhaawiciisa ka waran marka gudoomiye tuulax Maxamed culus baa mise hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhaqaatiirtu wareegii koowaad wali waa fiican yahay ma faham qaliinuna hadda ku jira marka qaliinka markuu ka soo baxo kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr gudoomiye degmada qaraxa ku dhintay ayadana dib baan ka soo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabkeena ku sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo inayna isdejiyaan nimankaan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno si walba iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan